سلامة الصدر وايو هداي لابتو بوكوتو بلا كدنبيسا waxaa ka dambeeya xanuunadan xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo dhan baa ka dambeeya waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad ka aqbali waayo مثلا nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka muslim warinayo albaabada jannada waxaa la furaa khamiista iyo isniinaha waa maalmuu nabigu soomi jiray inta badan waxaanu naqaanaa ramadaanna in la furo haddii goor soonta iyo albaabada furistoodu in badan baa nusuustu isku xidhaa albaabada cirka iyo kuwa jannadaba waxaa la furaa maxay maalmaha kan fayugfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay-a ilaahay wuxuu dembigiisa dhaafaa qof kasta oo mu'mino ahlu tawxiida laba laakiin ilaahay wuxuu dhahay iyaga arrinkooda dib u dhiga wa ayo kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa'un fayuqaalu andiru haadayni xataa yasطilixa laba walaaloo isa sudhnaa oo uurxuma jirtay iyaga waxaa la yidhaahdaa dib u dhiga marka adduun qura waayi maysid adduunyadu dee markay cidhidhiga gasho waa luntaayeen oo colaad iyo beliya baas baa ka ratay laakiin adduun qura waxaad waayeysaa maahe waa maxay dembi dhaafka allaad waayeysaa sidaa ogeed waxa fiican ilaa man ata allaha biqalbin saliim buu qur-aanku tilmaamayay ma liibaana aakhiro nin la yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaadda iyo reebninku balfiiri ama daymood ama dhugo ama eeg inta waxa uu inaga reebayo inta dhiba uu kuu geysanayo dadka laabtoodu caafimaad qabto nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horeysa ee jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14 dayaxoo ah ayay u galaan kooxda ku xigtaa buu nabigu yidhi xidiga ugu iftiinka badan la sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan kuwan calaamadoodu waa maxay wuxuu nabigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin quro baa ilaahay leeyahy oo wax khilaafa iyo wax isu cadhaysi iyo kuma jiraan idan waa dad laabfayow baa laleeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan oo dhan xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen aimada qaarna ay tasxiixiyaan sheekh ilalbani raxmat ullaahi caleyh intuu markii hore tasxiixiyey marka dambena uu isagu ka noqonayo tadciifinta uu badanayo xadiidkan culamo hore badan ku horeysana tasxiixisay wuxuu sheegayaa waa xadiidkii maxay anas ibnu maalik uu warinayey ama riwaayadka qaarkood calaa kulli xaal xadiidka macnihiisu wuxuu sheegayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nebigu leeyahy ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii unbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nebigu yihi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii unbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyo u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishuhu tukadaa wixii witir alla u qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istakfurlaystaa yani waa dikriya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka wayse qab ku seexda habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma kfir lii ilaahay dembigiisa waa dhaafaa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akhrista ilaahay dembiga waa ka dhaafaa ninkan intaana waa sameeyaa 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi bnu camar warniya waxaan rabaa
bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulaba wuxuu hi niyow wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leenahay ahlu janno ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataaye wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aad aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin mid aan kuu sheego qof muslima qish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaaha wuxuu yidhi haadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana aanu kari weyni in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa mas'aladan buu leeyahy mas'alada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fii suduurihim min gillin ikhwanan calaa sururin mutaqaabiliin ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار إلهي باكو أمانيا تابعينتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا با إن أدلاب فيوباتا أديك عافمات قبا يكوت واحد سيحاني سادو مير قبو عافمات قبو وحني بكو هاي أدو عيل قبا هدا سترا هدا سيحاني قمي بميسي سقال شربت وردادا كتوسيسا iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warkutaalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidaalik qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaa rabbahu biqalbin saliim nebi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi weligii ma aargoosan macnaheedu waa maxay madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado wax buu hogaamin karaa walidaalik ambiyadu waa qaadat lumma waa dadkii bulshooyinka adduun soo hogaamiyey waa hogaanadii ilaahayba doortay de hogaannimo loo doortay walidaalik baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku tilmaamaya man taqama linafsihi abad weligii ma aargudan nin intuu hogaaminaya ka aargudanaya muxuu soo kordhin weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa can abiha maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu yihi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray waan socday buu nebigu yihi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhahda markaan marayay baan baraarugay lama fiq buu nebigu tilmaamaya يعني قفكم مركي دبتو كبدتو واسك سعودي بو نبيغو لي وحون بان كلا غرتay anigoo maraya maxay meel la yiraahdo qarnu sacaalib markaan marayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay dabeetana wuxuu jibriil ku leeyahay in allaha qad samica qawla qawmika wama raddu calayk ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doontaa amar malakul jibaal wuxuu yihi reer maka labada buurada hareere ka xiga aan kor u qaadaya dushaan ka saaraya haddaad adigu amarto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam makiina waa tii nebi maxamed tuntay ee magaalada uga baxay gaala hadday ku disho malag lagu soo diray maxaad yeeli lahay ilaa midha ka reebin soo ma hadee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaala ah oo magaalada ka saaray oo dhibtaas qabsatay oo kuwii kale soo eriyeen ayuu wuxuu leeyahay bal arju an yukhrija allahu min aslaabihi man yacbudu allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay may ilaahay baan ka rajo qabaa inuu dhabaradooda iga soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo towxiidsada waan cidna ugu shirik yeelin amal kaasoo qabaa mustaqbal madoobi uma muuqdo inkastoo la diiday qalbigiisuna ma buko waa argooso iyo nimankii waxaa kugu sameeyey
adna aakhiro ku hubi ma aha ee aadanaha inuu naar ka badbaadiyo guntigaan idan hayaa buu nebigu leeyahay naartaan idinka xijinaya idan xagga naarta u sii yaacaysaa saa daraaddeed buu maalintii Uxud markii dhibtu soo gaadhay uu godka ku dhacay ee koofiyadii gashay ee ilga hoose laga jabiyey salaadihii fadhi uu ku tukaday dhibtu qabsatay ayuu nebigu wuxuu yidhi allah maxay yeeli duul wejigoodii dhiiggaa saa uga daadiyey maxaa xaalkood noqon cadha alla way badantay ilaahay baa quraan soo dejiyey la yidhi laysa laka min alamri shay dabeetana wuxuu leeyahay allahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun waxba garan maayaane yacni قالدي إلهي لي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كو إلهي يريد ويكاسو صارين يقول ربي إنا أمكو حدان أمكو الدلان أمكو بحيان قوان كو قاطئين الدلان يا إلهي سبحانه وتعالى كسو بدباديي أيو سقو سيدات كنو عيدنا ويمي وطا حافل يسابوكو يري وهذا أخ كريم وابن أخ كريم مو أرجو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكيولي لا تثريب عليكم اليوم أنا نكركي إنما هسكتك إذا تدك هو جامني ساسي وفكري قصة النبي يوسف نايم بدن بالين كورم نبي يوسف ولا الذي وجود كردي أو حدي أو دبو جيستي أو هدنا مصبيدا يري كان يري هدو حضي walaalkiiyo ka weyn baa tuug ahaan jiray waa Yuusuf ka hor taagan ayay leeyihiin walaalkiiyo ka weyn ayaa tuug ahaan jiray ayuu haddana iska cafiyey tallaahi laqad atharaka allahu calayna wain kunaa la khaatiin markuu ku yidhi laa tathriba calaykum alyawma yakfiru allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin yacni laabta muu bukin iyagoo god lagu riday oo aabbihii laga kaxeeyey oo addoonsi galay oo xabsi soo galay oo soo rafaaday noloshiisa qayb ka mid oo sanawaad ah xabsiga oo quru bidca siniin 7 sano wax ka badan ku jiray intaasoo sanadood baa la adoonsanayay god cidlaabu waxaa soo rafaada walaaladiisii soo mariyay ayaa u yimi iyagoo baahan isagoo madaxa markaasay haddana isagoo madaxa oo aanay garanaynin weli caayayaan oo leeyihiin kan yar hadduu waxday mid hore ay walaalahaayeenoo tuugaa jiray markaasuu ka xishooday inuu yidhaha war idinkaa tuugay idinkaa xumaa oo god igu riday waa caafinaya haddana wuxuu leeyahay dambi korkiina ma aha bal waxay culammadu yidhaahdaan wuxuu ilaaliyey khawaatirtooda oo markuu ducaysanayey xataa ma odhanin ilaahay ana jeelkayga soo saaray idinkana abaarta idinka keenay ilaa abaar baa ku dhacday labadaba waa asturo kaana waa iska dhaaf ilaahay godkayga soo saaray ma odhanin wuxuu yidhi ilaahay jeelkayga jeelkaiyo godkayga ma xun god cidlaa baa xun jeelka dad ba ku noole god cidlo laba dagaa haddii lagugu rido dee jeel ka daran laakiin isagoo rabbi rabo wuxuu nimco siiyey inuu ka warramo ayuu wuxuu ilaaliyey khaatirka walaaladii godkaayo haddii la sheego dee walaaladii xaalkoodii baa soo baxaya dabeetana uu iska daayo gaaladu intay u geysatuu sheegay ilaahay anigana jeelka iga soo saaray idinkana mu odhanin abaarta idinka keenay ee wuu asturay idinkana baadiyaa idinka keenay buu leeyay yacni wuxuu diidan yihiin wax hangaruufo ah isaga iyo walaaladii maxay inay dhex maraan min bacdi an nazaqa shaytaanu baynii wa bayna ikhwatii mu odhanin markaa dhibta ii geysateen markii aniga iyo walaalkay shaydaanna dhex maray buu leeyahay aniga iyo walaaladay shaydaanna dhex maray idan waa nebiyadii malaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee anagu ma nebiyaanu gaadhayna qaaraan nebi ahayn aan ka warramo oo qur-aanku ka warramo ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa qiso hore fi suurati yaasiin wadrib suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka warramay 3 rasuul oo magaalo loo diray rasuul baa la diray markaasay beeniyeen mid labaad baa laga daba diray markaasay beeniyeen mid saddexaad baa laga daba diray 3 rasuul baa la beeniyey 3 rasuul markii la beeniyey ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin kale oo aan isaga rasuusha ahayn وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
ilaahay wuxuu yihi magaalada xagga ugu dambaysa waxaa ka yimi nin ugu horreyn nin goobta joogayba ma ahayn warkaa gaadhay in nebiye la diiday dabeetana wuu isxilqaamo xil buu isa saaray halkaasuu ka yimi baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay u raaciyey qaabku u yimi ma ahayn nin caajis ah ee isagoo rooraya oo inuu arrintaa wax ka qabto raba ayuu yimi baa ilaahay yidhi wajaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa wuxuu yihi waar tolkayow waa raaca rasuullada cid aan waxba idinka doonaynin idinna hanuuninaysa aadanuhu inta badan soomaalidu maxay odhan jirtay wadaadka wacdigiisa waxaa ka dambeeya maxay waxisi markaa wacdigan hore dadka mari maaya mar haddaad waxisi la daba taagantay waa kollay dantu wataa uma waxii dhiiba weeyaan kan ilaahay wuxuu ku sifeeyey inaanu taa wadanin wuxuu leeyahay waa raaca rasuullo idinna hanuuninaya waxna aan idinka doonaynin aadana haddii xagga jeebka laga maro wuu isgeejiyaa qofkaad rabto qalbigiisa inaad furato inta badan ha isku dayin jeebkiisa inaad furato dabeetana waxaa rabbi ku yidhi waa diideen isxilqaamku intuu leegayna u fiirso 3 rasuuloo la diiday ka warran innagu waxaanu idhahaa wadaadadii baa jooga oo idinka maxilka idin saareen markaa muxuu yihi ninkani meel 3 rasuul joogto ayuu iska xilqaamaya wuxuu iska xilqaamayaa inuu qaban karo dadka inaad tidhaahdo war wacdiga dhegaysta war kaalayo diinta dhegaysta uma baahna wadaad war khamriga iska daa war zinada iska daa war salaada tukada war rabbigii ka baqa war wanaaggaa laga shaqeeyo uma baahna wadaad nin walba muslim wuu garanaya laakiin isxilqaankaa yaraaday dabeetana hal wadaad ama muxaadaro jeediya ama imaam kelmad yidhaahdaa diintii baa laga dhigay asalkuna wuxuu ahaa dadka muslimiinta oo dham inay diinta iska xil saaraan waxaa gaala idinka idin sugayaan aakhire su-aashooduna khatar weeyaan inay yidhahaan ilaah way nala joogeen oo jeebakaygay baadhan jireen waxba noomay sheegin way noo soo hunguri doonteen diinba noomay sheegin waa su-aal khatar ah ninkan ilaahay wuxuu yihi meel fog buu ka yimi isagoo roorayuu yimi caynkaasaanuu yimi haddaba intaasoo dham iyadoo cajaba wax kasii cajab badan baa ilaahay sheegay waxay culamadu yidhaahdaan ninkani mabdi'iisi buu casdaystay ma li laa acbud maxaa aniga aan u caabudi waayo rabbiga iyo cidka mabdi'iisii oo dhan buu caddaystay kadibna isagii bay dileen waa la dilay meeshu meel sahlan maahayn meesha ninkan iska taagay waa meeshaa keensatay in la dilo waa la dilay ilaahay intuu ifka joogay warkiisii wuu inoo sheegay aakhire markuu tegayna ilaahay baa warkiisa inoo keenay haddana warka aakhire ka cajab badan ilaahay wuxuu leeyahay qiila dkhuli ljanna war jannada gal baa la yidhi markuu diinta usoo dhintay dabeetana wuxuu leeyahy qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin yaa layt alla jeclaan lahaayee buu leeyahy tolkay inay ogaadaan oo og yihiin sida rabbi igu dambi dhaafay iyo sida lay karaamay kuwii dilay buu weli khayr la rajaynayaa laabtaan bukin kuwii dilay ayuu khayr la rajaynayaa adigu hadday gaala ku disho oo dad diinta diidan ay ku dilaan oo had aakhare qabato oo ilaahay wax ku weydiiye maxaad odhan lahay waxaa laga yaabaa inaad odhan lahay bal jannadu horta hay dambaysa raggii aanu shaynay rabbow godka naareed ku hobi laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ninkan aakhiro jooga markii horena meel fog buu ka soo cararay inuu dadka diin u sheego iminkana isagoo dhintay ayuu wuxuu leeyahy alla tolkayaa u sheega sida rabbi ii nimceeyey eedda igu dambi dhaafay iyana ha islaamaan weeyaane taa macnaheed waxa weeyaan waanu ceel qabin si kale haddaynu tilmaamno waxa weeyaan laabtiisa caafimaad qabtay taasaa waxay sababtay inaanu dareemin waxaan oo dhan waxaa qur-aan iyo axaadiis badan ku soo arooray abubakar qisadiisii uu ninkii mastax ibnu athaat yidhi waxbaan ka jarayaa ee ilaahay subxaana wa tacaala yidhi iska cafi walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu ulu lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah waliyacfuu waliyasmaxuu ala tuxibuun 44 aayadood wax ku dhadhow baa qur-aanka ku soo arooray oo masalati alcafwi wasafxi ka warramaya in dadka la cafiyo ama la dhaafo ama aan wuxuu loo qabanin ka warramaya soo arooray labadan aayadood mala aan idinku khatimo ugu horeyn bulshada muslimka ah
hadday laabtu caafimaad qabto colaadi dee ma jirto. colaadi waxay timaadaa maxay? markay laabtu bokooto. soomaalidu maxay tidhaahdaa gacantu intaanay xumaan afbaa xumaada. afxumaa ka horeysa maxay? gacanta. hadday laabtu caafimaad qabto dadku nabad buu ka shaqeeya, colaadaha iyo dhibti iyo mashaakil uma timaado. sida awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta inay yihiin mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim. dadka mu'miniinta isu hilowgooda iyo isu naxariisadkooda iyo isjacaylkoodu wuxuu la mid yahay sidii jidh qudha oo qaybe hadday xanuunsato qaybta kale soo jeed iyo xanuun ay la qabto. haddaba ba labadan aayadood ila fiirso. labadan aayadood waxay ka waramayaan qiimaha ay leedahay laabtu inay caafimaad qabto. mu'miniintuna xoogoodu inuu mas'aladan ku xidhan yahay. ilahay wuxuu leeyahay haddaa idinku laabtiinu caafimaad qabto waxa gaale iyo munaafiqiin mareegayso oo dhami waxba idinma yeeli karaan. haddaydan see laabtiinu caafimaad qabin idinkaa isdiliyo isku madhanoo kuwa kalena way idin gumaysan. markaa waa laba aayadood oo qur-aan tilmaamaya. aayadda koowaad ilaahay wuxuu leeyahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya in allaha bima yacmaluuna muxiit. gaalkiiyo munaafiqa ilaahay wuxuu yidhi haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idinku dhacdana way ku farxaan. waa calaamada gaalka iyo munaafiqa lagu yaqaano. ka waran adigoo muslima haddaad saa noqoto, haddaad reer hebel marka la gumaadana faraxdid, markay guulaystaanna naxdid, muslimiintu markay guulaysato naxdid, gaalku markuu ka guulaysto faraxdid. waa sifadii gaal iyo munaafiq ilaahay ku sheegay baad adigu qaadatay. si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay kuwa gaaleed iyo munaafiqeed haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan, hadday dhibi idin haleeshana waa ku farxaan. kaasi waa iyaga iyo qaabkay u fakarayaan. laakiin idinka maxaa dhacaya? tattaquu haddaa idinku sabartaan, ilaahayna ka cabsataan oo walaalnimadiina iyo alla ka cabsigiina uu jiro, laa yadurukum kayduhum shay-a. waxa ay dhib wadaan oo dhami waxba idinma geysan karaan. u fiirsa aayadda qur-aan hadda, laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilahay yidhi. waxa makriyo ay xadhig wareeg wadaan oo dhan waxba idinma yeeli karaan. waayo in allaha bima yacmaluuna muxiit baa ilahay yidhi. waxaan ay wadaan ilaahay waa ogyi. ilaahay baa koobay baa la yidhi ka seexda. haddii laakiin cagsigu uu dhaxo maxaa dhacaya? ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay waatiicu llaha warasuulah. alle iyo rasuulkii aqbala. waa jidka walaalnimo iyo calolfayoobaad iyo waxaan idinku dhacayaan. walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin. ilahay wuxuu ina leeyahay alle iyo rasuul baa adeeca. war nisaaca iyo isqabsiga iska daaya. nisaac iyo isqabsigu wuxuu yimaada markay dee laabta xumaato, dabeetana waa la isqabsadaa. maxaa ka ratibmaya? markii hore maxaa la yidhi? wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-a. markana maxaa la yidhi? markay laabti xumaatay colaad iyo dagaaladu dhexdeena ka dhacaan, fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilahay yidhi. kalimat lfashli fi luga dacfigaa la yidhahdaa. waa liidan doontaan, dowladnimadiina iyo xooggiinuna way tegi doontaa baa ilahay yidhi. maanta caalamulislaami maxaa ka jira? marka hore calooshaa xumaatay, kadibna waa la isqabtay, kadibna waa la isdilay, kadibna gaalkaa loo kala dheereeyey, kadibna waa la daciifay, kadibna dowladnimadii baa la waayey, kadibna waa layna gumaystay. markii horena waxaa layna yidhi laa yadurukum kayduhum shay-a. markana waxaa layna yidhi maxay? fatafshaluu watadhaba riixukum. haddaba ayuha alaxiba, qof ahaantaada markaad tahay, haddaad rabto inaad caafimaad qabto, jaamacadda Leeds agtiina ku taalla, professor ka mida wuxuu iclaamiyey inuu dhigayo course ku saabsan caafimaad qabta laabta iyo dadku inay iscafiyaan iyo musaamaxa. oo dabeetana wuxuu leeyahay xanuunada ugu badan ee bini aadam ka dhaca cuqadka nafsiga ka dhashaan buu leeyahay.
haddii dadku laabtoodu caafimaad qabto caafimaadkaa faafaya. korska markiiba saacaduu ku buuxsamay baa la yidhi, dadkuba waa bukaa. yani waxaan leenahay intaan Leeds iyo meel kale laynooga sheegin, ilaahay baa wuxuu inoo sheegay hadday laabteennu caafimaad qabto kow inaynu inagu caafimaad qabayno. hurdo fiican iyo calool fiican iyo cibaado fiican oo rabbi aqbalo iyo waxaad ku cibaadaysanayso rabbi kaa yeelo iyo dadka muslimiinta oo ku aqbala. dadku qofka laabta xaadhan lama colaadiyaan, laakiin tit for titkaba ayaa beledu ka dhacdaa. adna intan u geysa adna intan kuu geysadu ma dhammaato. laakiin dadka musaalimkaa dadkuna wuu la nabadgeliyaa, waa badbaadiyaa, waa la musaalamoodaa. idan qof ahaantaada waad ku caafimaadaysa. hadday laabtaadu caafimaad qabto waxtar bay kuu tahay diin ahaan iyo caafimaad ahaan adduunya ahaanba. waa mar labaade ka bulsho ahaan jiritaankeennu wuxuu ku xidhan yahay in badan oo ka midi laabteennu inay caafimaad qabto. ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu sidaan nahay oo sabir iyo taqwo iyo alla ka cabsi uu inagu jiro, kaydka cid kale waddo oo dham inaanu waxayna yeelaynin. haddiise aynu cagsiga nahay oo markaasi inagu isu xiniyo weyn nahay oo colaadii iyo cadhadu ina dhex taalo, in jabkani jirayo. waxaa markaa habboon qof waloo muslimiba meesha ugu habboona uu ilaaliyaa inay qalbigiisa noqoto. in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum, sidaa u egtiin iyo qoloftiina ilaahay ma eego, ee rabbi wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum, qalbiyadiina iyo waxa ka ratibmee acmaasha ah ayaa rabbi eega. waxaynu u baahanay meesha rabbi eego inaynu tahirno. qur-aanka sifaadka ambiyada ay dacwaday wadaan waxaa horeysa wayuzakiihim. bale nebi ibraahim markuu ducaynayay qur-aanku siduu usoo naqliyey taskiyaduu dambaysiiyey. rabbanaa wabcad fiihim rasuula yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim weeyaan. ilaahay markuu sheegay in dacwadaa uu aqbalay, saddexda aayadooda kale ka waramaya taskiyaday horeysiiyeen. culamadu waxay dhahdaan lafta qur-aaniya baa ku jirta oo ah inay taskiyatu lquluub ka horeyso tacliimu lkitaabi walxikma. تلاوة الكتاب أي تبليغ يد وياه. أما تعليم الكتاب والسنة أين كهر ريسمحي تزكية القلوب. قلبي هذا لا نذي فيه لا الرباية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بإلهي. وحلي باني عند نفتي سطهرته. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. indhaha lama beelee waxa la beelaa baa rabbi leeyahay, kuwa laabtaa la beelaa. laabta haddaad la-dahay indhahooda waxaa ka sokeeya indhamaha. laabta indhahooda waxay arkaan marka wixii rabbi jecel yahay. wixii rabbi jecel yahay ayay arkaan. waxa rabbi jecel yahay haddaad aragtana thawaabka iyo ajarkaad helaysaa kaala weyn wax kastoo lagu geystay. in dhib lagu gaarsiiyo adna aad intii goosato waxa ka ajar weyn. walaman sabara wagafara ayaa ka ajar weyn. ayuha alaxiba, kelmadan qeybteeda hore waxaan kusoo koobayaa inaynu maxay rabbigeen tala saarano oo uu ahaado waxa mudnaanta aynu siinaynaa laabteennu inay caafimaad qabto. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى بينك ورمي هدي وقت الله له إن لابتو عافمات قبت محاكو ساعدية ما الأسباب محي مركات سميسو أي نغونس على لابتو عدوين هاد عافمات قبت إن شاء الله تعالى وحين نكرر درس آخر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.